gabadhan wejigeeda waxaa ka qaniinay qof aanay weligeed arag. Sanadkii 2023 gabadh 18 jir ah oo lagu magacaabo Ella Dolling ayaa la kulantay weerar argagax leh oo aan wax sabab ah lahayn xilli ay saarnayd bas gudaha magaalada London. Marka ay kursiga keligeed ku fadhiday, Darren Taylor oo ahaa nin 53 jir ah oo aan is aqoon ayaa bilaabay inuu ku yiraahdo hadallo aan habboonayn oo cabsi gelin ah. Ella waxay isku dayday inay iska indha tiro iyadoo rajaynaysa inuu isaga tago, laakiin si lama filaan ah ayuu ninkii ugu booday. Si naxdin leh ayuu wejigeeda ka qaniinay isagoo ilkaha ku jaray dhuunteeda, taas oo sababay dhaawac weyn oo dhiig badan ka keenay. Dadkii rakaabka ahaa ayaa ku soo booday si ay u caawiyaan Ella iyadoo ay dhiigu ka daayo oo aan fahmin waxa. Ella waxaa loo qaaday isbitaalka halkaas oo dhakhaatiirtu ay ku sameeyeen qaliinka dib u dhiska, waxayna u xirmeen dhaawaca ku dhowaad 50 tolmo si loo hagaajiyo burburka daran. Darren Taylor ayaa markii dambe la xiray oo maxkamad lagu helay dembiga. Weerarkaas wuxuu Ella uga tegay nabarro joogto ah, jidheed iyo maskaxeed labadaba, wuxuuna noqday mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa ee rabshadaha aan sababta lahayn ee ka dhacay gaadiidka dadweynaha ee London sanadkaas. Runtii waa arrin aad u argagax leh, qiyaas inaad baska saaran tahay, adigoo sidaas oo kale si lama filaan ah oo aan sabab lahayn qof kuu soo boodo oo wejiga kaa qaniino.